ramadaanka aad si fiican diet ugu socon haddaad si fiican isku gaarin cunto fiican aadan cunin oo iidii kugu soo dhawaato isdhaxda ramadaankii uu dhamaan raba adigana kama istifiidin hadda dietkan waxaad ka istifiidi kartaa 15 bari oo ka dhiman ramadaan waxaa rajeynaa insha Allah miisaan fiican inuu ka dhaco dietkan wax dhiba badan ma laha cunto gaar ma laha kaliya waxa laga rabaa adiga السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا channel كيغا ومنا كورنر waxaan idin rajaynayaa insha Allah khayr iyo caafimaad meel walba aad joogtaan Ramadan uu cararay ma sha Allah tabarakallah waxa mareynaa haaf Ramadan marka waxa idin la jeclaaday diet oo maxay fudud dadka aan Ramadaankii koodiisa diet bilaabin ama si fiican cunto u cuneynin ama cuntadooda qasqas ku jiray oo miisaan fiican iska dhimin ama maxay dietka aan soo dhigay Ramadaanka bilowgiisa aan la bilaaban marka waxa idin soo dhigay insha Allah waxa idin soo wada insha Allah diet oo intaan ka hartay bisha ilaa iida haduu Ilaahina gaarsiiyo miisaan fiican ka dhacayo haddaad jeceshahay diet iyo miisaan dhimis aad ka heshay channelka waxaad ka helaysaa fiidiyoyaal badan oo xagaas ka caawinaya sidoo kale waxaan rajeynayaa insha Allah asxaabta inaad la share gareysiin fiidiyowgan like iyo share subscribe gambaleelka furtaha ilaabina inaad furatiin mar walba wax cusub marka soo dhiga sida uga wada heshiin ayaamahan waxaa soo galiyay fiidiyoyaal oo cuntooyin diet state shurbadi insha Allah waxaan idin soo galin doonaa macmacaan marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaad maxay ahado ina mar walba gambaleelka furatiin sida uga war heshiin dietka hadda oo maxay ahado idin wado waa diet sahlan wax dhiba maxay ahado ama cunto oo qaas ma laha dadka oo Ramadaankii bilowgiisa maxay diet bilaabin ama miisaan dareemay inuu maxay miisaan ku soo kordhay waxa idin ku dhiirigelinayaa dietkan ilaa bilowdeen ilaa Ramadaan aakhirkiisa waan hubaa miisaan fiican idin ka dhacay wuxuu ka kooban yahay dietkan maalintii oo dhan marka soomantaha afurkii waxaad ku afuraysaa 3 xabbo timir iyo 2 bakeeri oo biyo marka intaas ku afurtid maqribka tukanaysaa waad nasanaysaa howlahaaga qabsanaysaa kadib cabaar marka joogtid waxa cabaysaa bakeeri qaxwa ama bakeeri shaah ama bakeeri sanjabiila cabitaanka kulul aad jeceshahay adiga mar walba cabtid cabitaankaas cabaysaa marka cabtid cabitaankaas cishaha tukanaysaa taraawiixa tukanaysaa ama jimicsi ama sameynaysaa howlahaaga qabsanaysaa marka cabaar joogtid gaajo way ku qabanaysaa 3 saac ilaa 4 saac meelahaas markaas waxaad cunaysaa wajbadaadi dietkan waxa la dhahaa OMAD 1 meal a day hal wajba kaliya lagu ogol yahay wajbadaas waxay tahay casho afur suxuur bay ku tahay marka waxa ku dadaashaa ina xooga taraawiix kadib inay ahaato siday maxay ahaado suxuur amal ay kugu noqoto iyo casho isla markiiba qofka markuu soomayaa maalintii oo dhan biyaha hadaad ku bilaabatay 2 bakeeri biyo waan hubaa gaajo kuma qabanaysa gaajadu way ka ba'aysaa soonki waa jabinaysaa gaajadan way ka haraysaa haraadku wuu ka go'aya waxa sidoo kale muhiim ah marka afurtid ilaa suxuurtii ina biyo cabtid hadaa rabtid miisaan inuu ka dhaco caafimaadna heshid biyaha cab afurka ilaa suxuurta mar walba bakeeri biyo cab ha imaanin suxuurtii 3-4 bakeeri inta ka tuurtid ha isdhihin biyo cabay markaas wax kama istifiidaysid marka jirka isla markiiba uu iska bixinaya kaadi maanta oo dhan ma seexan kareysid marka waxaad ku dadaalaysaa marka afurtid ilaa waqtiga suxuurta mar walba bakeeri biyo in cabtid waqtiga cashada wajbadaada cunaysa halkaas wajba baad cunaysaa wajbadaas waxa laga rabaa 3 waxyaabood inay ka koobnaato protein oo ama malay ama ukun ama toonada gasaca ama hilib ama dooro wuxuu ahaadaba protein inuu ahaado iyo qudaar aan salaato ama koosta aad karisay ama baamiye iyo qudaar isku karisa iyo carbohydrate ama bariis ha ahaado ama baasto ama rooti waxay ahaataba ama xataa soorba ahaato dada ku suxuurta soor iyo maraq iyo hilib waxaas waa cunto dhaqameed waana cunto maxay hada fiican hadii saliid lagu badin maraqa sidoo kale daartid cambuulaad ku suxuuran kartaa ama casho ka dhigan kartaa almuhiim wajbadan waxa laga rabaa wajbo oo maxay hada waxyaabo nafaqo leh saddexdaas waxa idin sheegay inay ku jirto waxa laga rabaa wajbadaas inaad si fiican u cuntid oo ga dheregtid wax la dhahayo sambuus iyo bur wax saliid lagu dubo dhan nafaqo waxaas dhan waad iska ilaabaysaa maxaa jira 15 bari kaliya baa ka harta Ramadaan hadaa rabtid miisaan inaad iska dhigtid hadaa rabtid hadaf inaad yeelatid iida haduu Ilaahina gaarsiiyo dhar fiican aad xiran kartid waa inaad ku dadaashaa bariyahan ku hartay bariyihii ku soo dhaafay iska ilaaw intaan bariyahan ku hartay aad ka istifiidi kartaa haduu Ilaah yiraaho
waan hubaa dietkan haddaa si fiican ugu socotid si fiican stepska sheegay haddaa ku socotid oo isticmaashid waan hubaa inuu miisaan fiican kaa dhacayo saa sheegay wajbadaas markaa cuntid 4 saac meelahaas yani ku dadaal 4 saac 5 saac meelahaas inaa cuntid haddaa seexanaysidna 2 saac camal ka hor inay ahaato maxaa jira dhe lama rabo cuntada cunto inaa la seexatid markaa cuntid cashadaas ama wajbadaas cunto halkaasaa kuugu dambayso cuntadaadii oo dhan intaas bay ahayd marka waan hubaa ilaa maalinta ku xigta gaajo kuma qabanayso ilaa duhuradii camal casarkii haddii u badato laga yaabo inay gaajo ku qabato waana normal qof sooman baa tahay kaliya waxaa lagaa rabaa marka cuntadaas cuntid kadib biyaha inaa badsatid biyaha cab waxaa cabi kartaa cabitaanada shaahiga sanjabiilka qaxwada waxyaabahaas maxaa ahaydo cab laakiin ka ilaali waqtiga hurdadaada sida hurdada ay kaaga qasin waxaan rajaynayaa asxaabta inaad dietkan ka heshiin tijaabiya waan hubaa insha Allah miisaan fiican aa idinka dhacaaya kaliya inaa lahaatiin laga rabaa iraado iyo casiimo iyo hadaf qof la inaa ahaatiin asxaabtina la share gareeya videogan dad badanaa maxay u baahan miisaan inay iska dhimaan sidoo kale waxaan rajaynayaa insha Allah subscribe-ka iyo gambareyka inaad furatiin khayr idin rajaynaa insha Allah. Assalaamu calaykum.